الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أما بعد، walaalayaal khudbadeena waxaynu kaga warrami doonaa insha Allah laba arrimood oo midna wadanka gudihiisa tahay midna ka baxsan tahay oo ay tahay wadamadeena kale muslimiinta. mawduuca hore waxaynu kaga hadli doonaa Falastiin iyo Baytul Maqdis. waa laga yaabaa qofku inuu islaado wiigii hore ahayd wiigii hore ku fiicnaa, laakiin miyay dhamaatay baa isweydiin leh. arrinkaas miyuu dhamaaday mise uu socdaa? odayaasheena inoogu waaweyn halkan fadhiya 70-ka da'doodu ka weyn tahay sidaasun bay arrintan u maqlayeen, waanay sii soconaysaa, istaagi mayso ilaa rabbi uu nasrigiisa keenaya ina jabin maayaan insha Allah. sidaa daraaddeed labadii wiigayna soo dhaafay, wiigii hore dagaal baa ka socday, wiigana xabad joojin baa lagu jiraa, waqti kastana uu bilaabmi karaa. sidaynu uga hadlaynaa waa afar dhinac. maxay tahay Falastiin? midda labaad maxaa ka jira? midda saddexaad maxaa dagaalka kiciyay ama se joojiyay? midda afraad maxaa inaga inala gudban? ta u horeysa haddaynu usoo noqonno inagoo soo koobkoobi doona, waxaa muhiima inaad ogaato ardu Falastiin waxay tahay. waa laga yaabaa qofka iska caadiga inuu idhaahdo maxay naga galay, innaguna waddan baynu leenahay, iyaguna waddan bay leeyihin. laakiin qadiyaddu inaanay caynka ahayn ee inta arrintu ay ka weynti wax la wada leeyahay in ay tahay baynu baraarujin doonaa. arrin diiniya ay tahay ee dagaalka ka socdaa diin la isku haysto. sidaynu ogsoonnahay Baytul Maqdis waa halkii nebiga loo dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu ku tukiyey ambiyada ilaahay. qur-aanka kariimka ah si cad buu u sheegay suuratu lisraa bilowgeeda. ilaahay halkaasuu kaga warramay: subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah. siduu baytullaahi alxaraamkaba u sheegay. halka laga yaabo masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee madiina ee markaynu xajka iyo cumrada tagna aynu soo booqanno aanu qur-aanku aada u caddayn. sidaa daraaddeed waxa uu saddexaynayaa labada xaram, maka madiina, isaguna kii saddexaad wey. nebiguna sala allahu calayhi wasalam marar badan ama marar dhowra buu israaciyey labadaa masjid iyo masjidka al-aqsa. oo mar wuxuu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam: laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa 3 masaajid. rarka looma adkaysan karo oo looma raran karo oo looma safri karo cibaado ahaan 3 masjid mooyaane. hadduu cibaado qofku ku nadro ama uu doono inuu meel kusoo cibaadaysto 3 wuu u safri karaa. waa masaajidka xaramka iyo kaa madiina nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqsa. mar kale rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam salaadaha lagu tukanayo 3 masjid inay ka duwan yihiin salaadaha lagu tukada masaajidada kale caalamka. oo salaada lagu tukado baytullaahi alxaraam 100,000 oo salaadood bay la ajrita. ta masaajidka rasuulka lagu tukado sala allahu calayhi wasalam ee madiina 1,000 salaadood bay la ajrita. ta lagu tukado baytul aqsa 500 oo salaadood bay la ajri tahay. sidaasuu isu raacinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxa aynu ogsoonnahay 17 bilood buu nebigu u jeedsanayay oo qiblo muslimiinta u ahaa masjidkaasi markuu rasuulku tegay madiina sala allahu calayhi wasalam. waa qibladii loo tukan jiray wakhtigaa madiina. markii dambena ilaahay wuxuu faray inuu xaggan u soo jeedsado nebigu calayhi salaatu wasalaam, xagga kacbada. ardu Filistiin waxay ahayd xaruntii ay u badnaayeen ambiyadu ee ay deganaan jireen, ee ay iyagu dhiseen, ay gacantooda ku dhiseen masjidul aqsa.
waxaynu ogsoonnahay ardu filistiin inuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ardu lmaxshari waa manshar. saxaabiyad baa tidhi bal fatwo iga sii oo macluumaad iga sii. baytulmaqdes mowladiisii uu xoreeyahay, markaa nebigu wuxu uhi waa halka ilaahay uu ka soo saari doono khalqigiisa, isagaa yaqaano siduu uga soo saarayo. waa masracu dajaal, meel weligeeda ba dagaalkaasi uu ka socdo weeye, qolada xaqa hor kacaysa iyo qolada baadilka. dagaalkaasi wuu soconaya ilaa ciise bnu maryam intuu dhulkaa ku soo dego dajaalul acwar uu ku dili doono. ciise bnu maryam calayhi salaam ilaahay xagga koruu ka keeni doonaa aakhiru zamaanka. dajaalul acwarna wuxuu ka soo bixi doonaa yuhuudda eeraan, dabeetana isagoo koox badan oo yuhuudi ay la socoto ayaa halkaa lagu cunaya, lagu khaarajinaya isaga iyo kooxdiisa. waa goobtuu u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. dhulka ilaahay meelo u duceeyey ayaa ay ka mid tahay. ilaahu noo barakee shaamtayada iyo yamantayada buu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam. in badan oo asxaabtii markay arkeen daliilada badan ee ku soo arooray qur-aan iyo xadiidba dhulkaa deegaan bay ka dhigteen. intay ka tegeen madiina qur-aankay dadka ku barayeen, dacwadday ku faafinayeen. asxaabta aynu magacyadooda soo akhrinay baa ka mid ahaa cubaadat bnu saamit, shadaad ibnu aws, usaamat bnu zayd, dixyatulkalabi iyo qaar badan oo kale. culimmada shaamiyiinta ahaa ama reer falastiin aad bay u badan yihiin. waxaa ka mid ahaa malik ibnu dinaar, sufyaan thawri iyo moxamed ibnu shihaab oo la odhan jiray min aclam taabiciin, iyo imaamu shaafici laftiisa, aimad badan oo kale. meelaha ay mujaahidiintu iyo culimmadu aada ugu badnaayeen ayaa ay ka mid ahay. ninkii madaxda ka ahaa masar iyo dhulkaas falastiin ee la odhan jiray maxmuud nuurudiin zank, raggii goobtaa ku dagaalamay xoreeye ka mid ahaa iyo tataarkaba. mar la yidhi maxaad u qosli weyday, wuxuu ihi astaxyi min allaahi an abtasima wa baytulmaqdis fi lasr. ilaahay waan ka xishoonaya inaan qoslo iyada oo la inaga haysto qudus. madaxweynihii ugu dambeeyey dowladdii laga riday turkiya ee gaaladu ay isugu tegeen 1922 cabdilxamiid, waxyaabaa lagu baayacay bay ka mid ahayd maaskaga hadhin ardu filistiin iyo qudus. ma suuroobaysa buuhi inaan laa aqdiru an abiica arda filistiin walow qadaman. fuudhna ha ahaate inaan ama kursi dhaafsado ama maal ma kari karayo. sidii bay reer galbeedku kaga takhaluseen oo ay markaa ilaa maanta ku joogaan. waxyaabahaasi waa macluumaadka ardu filistiin iyo shaam iyo qudus ay leedahay ee diiniga ah, saabiqan walaaxiqan ay tahay hore iyo imikaba inaynu ogaano. taasoo natiijadeedu ay tahay inaanay qolo quri lahayna muslimku wada leeyihin, ammaano qoortooda saaranna ay tahay, sidaa xarameynkuba ay yihiin. intaa waxaa sii raaca oo aynu ku dari lahayn maxaa ka jira ardu filistiin. waa wada haystaan oo macluumaadkeeda dee iclaamkaasaa ka qaadanaysa, laakiin waxaa inoo muuqanaya ugu horreyn inay joogaan oo la keenay yuhuudda dal iyo dadba baabiinaya, aladiina caafuu alcibaada walbilaad, ee dowladaha awoodda badan laga dhigay, ee dad iyo dalba kharaabinaya, ee muslimka dhexdiisa la dhigay. gaaladu way fikireen oo waxay yidhahdeen muslimku hadduu isu baxo ka nasan mayne ciidaan dhexdooda ku beerno, waslad khatar oo kansara iyagaa la keenay. waxaa ka jira dowladaha nasaarada ee gaalada kiristanka ah oo iyaguna xooggii ay ku keeneen la daba taagan. waxaynu ogsoonnahay qudus waxaa xoreeyey sanadii 17aad hijrada cumar bnu khadaab radia allaahu canhu, isagoo u diray colkii horkacayay abu cubayda. markii uu kala wareegaya kiristankana madiinuu ka yimo looga yeedho, halkaasuu ayuu la qortay heshiiska waxaa ku jiray in nasaarada meesha joogtee laga xoreeyey la iska daayo kaniisadahooda iyo saliibkooda ay iska haystaan kol hadday cashuur bixinayaan, laakiin yuhuuddu aanay imanin
heshiiska saasaa ku jiray. dadka muslimiintu sidii ay gacanta ugu hayeen mar dambe nasaaradu dib u qabsadeen 8 sannadood bay haysteen. 583 markay taariikhdu ahayd ayuu dib uga xoreeyay Salaaxudiin al-Ayuubi al-Kurdi oo Kurdi ahaa. waxaa dib loo qabsaday oo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo reer galbeedku ay dib u qabsadeen 1920 markay taariikhdu ahayd. maalinta waxaa laga joogaa 100 sano ama 101 sano ayuu naga maqayo gacanteena ka maqan yahay. jaraa'idka u waaweyn Washington ka soo baxaa waxay qoreen aan idhaahda cafwa New York waxay qoreen maanta guul bay gaadhay dowladda Britaniya ama Ingiriisku kol haddii Qudus oo gacanteena ka maqnayd ay maanta ku soo celiyeen. sidaynu ogsoonnay 48kiina Yuhuudda lagu wareejiyey sidii baanay ku maqan tahay. insha Allah dib bay u soo noqon. waxaa ka jira dad muslimiina oo la garbaduubay oo shacab ah oo walaalaheena Filistiina iyadoo loo adeegsanayo dad badan. waxaa laga ilaaliyay hub iska daaya dhoonigii iyo dawadii dhan walba waa laga maray. waxaa ka jira walaalahoodii carbeed ee dad ugu dhowaa in loo adeegsaday madaxdooda shacabka odhan mayno laakiin madaxdooda Urdun, Masar, Suuriya, Lebanon intii ku xeernayd ayaa loo adeegsadoo lay nimanka haddaad doonaysaan inaad naga nabad gashaan kuwaasaa firig loo dhaqdhaqaaqaye nala ilaaliya. xuduudii baa laga xidhay. sida bahalaha ayay dhulka hoostooda maraan oo ay dawadii iyo cunada iyo hub waxay raadsanayaan ka baadi doonaan. waxaa ka jira muqaddasaat tuntahak xurumaatuha goobihii loo dagaalami jiray la difaaci jiray taariikhda qur-aanku ina barayo oo la bedelayo oo la doonayo kaniisadii Yuhuudda iyo Nasaarada in la soo nooleeyo oo laga dhiso oo la masaxo raadka muslimiinta. walawlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd lahuddimat sawaamic wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira. tallaabooyin baa la qaaday andargaroonnay ka wadaan maalinba qayb bay binaynayaan saasay u socotaa. dagaalka maxaa kiciyey maalmahan u dambeeyey dagaalka sidaynu ogsoonnahay waxa soo kiciyey waxay soo abaabuleen Yuhuuddu 2000 oo koofiyadahoodii xunxumaa gashan. waxaa la doonaya ciid ay lahaayeen in lagu qabto masjidka barakaysan ee Baytulmaqdis lagana dareeriyo dadka muslimiintii ay si ay uga dhammaadaan oo wax ku tukanaya aan loo arag. kadibna ilaa iclaamka adduunyada iyo qalabka warbaahinta iyaga gacanta ku hayee lagu soo jeediyo la yiraahdo dadka ku tukanaya meesha iska leh ee kuwan kale ma laha. tay muslimiintu ka dagaalameen taasay intaasoo dhammi waa waxyaabaha waaqica ah aynu arkayno markaynu soo koobno inaan loo kala hadhin la isu raacay. waxaa intaasii raaca kooxo isbaabulay oo loo bixiyey fasaa'ilu lmuqaawama kooxaha wax iska celinta oo samaystay hubay gacantooda ku samaysteen iyo wax yaroo qarsoodiyo dhulka hoostiisa ay soo mariyeen. kooxahaas markaynu qiimayno waa kuwa loo mari la'yahay ardu Filistiin iyo Qudus in la qabsado lala wareego iyadoo nasrigiis Ilaahay ay ku soconayaan. waxay faa'iideeyeen sidaa horeba aynu soo sheegnay ciidaha iyo xafladaha la doonayay in lagu qabto inay fashiliyaan way socon weyday. wixii isa soo abaabulay istaba guuraya sunnaaradda dhaadheer lahaa halkiiba ka noqdeen ka carareen markay madaafiicdi ku bilaabantay. magaalada la yiraahdo Xayu Sheekh Jarraax dadka waa laga qaxinay waa la dareerinay iyaga dib bay u joogeen dadkii oo deegaankoodii ay ugu noqdeen. kooxahaasi waxay muujiyeen awood cadowga cabsi gelisay oo waxaynu ogsoonnahay meelaha lama taabtaanka ahay Tel Aviv Suuriya way dagaalamayeen waxba kuma ridin. Masar waxba kuma rido. shiicadu Xisbullah iyo Iran ma gaadhaan Tel Aviv meelaha lama taabtaanka ah ayay ahayd
washington oo kale ka dhignayd kibriyaaga kibirka yuhuuddu ay leeyihiin si ay u jabiyaan bay garaaceen waxaa ka soo baxay colkii gaaladu inuu duloobay oo iclaamka ay ka muuqato ciidamadii ugu waaweynaa adduunyada ee hubka ugu casrisan sitay toban meelahaasay soo galaan ama dhowr iyo toban ciidamada ugu casrisan adduunyada waxay iclaamku soo sawireen iyagoo beerka wada dhigay oo qaarkood isku xaarayaan qaarkoodna barooranayaan ay qaylinayaan wasiiru difaacu wuxuu lahaa lacag baan siinayaa kooxaha cidda iclaamka ka masaxda sawirada noocaas ee ciidamada iyada laga duubay foolxumadooda iyo fulaynimadooda carab iyo muslimiintaba waxay u muujiyeen hashaashat alkayaan asahyuuni inuu daciif yahay awoodda yuhuuddu waxay jabiyeen waxa loo yaqaano sanama tadbiic isku dhowaynta yuhuudda oo aada loo isticmaalaya beryahan dambe ayay kala tuureen imise dowladoodoo carbeed baa heshiis la galay oo imaaraadku horkacayaan ayaamahan u dambeeyey oo halka ay marayeen la gaadhay qoysaska in la walaaleeyo oo la yidhaahdo qoysaska carabta iyo qoysaska yuhuuddu cultureka iyo dhaqanka ay wadaagaan ha isku darsadaan oo la isdhex marinayay oo la lahaa kursiga si aad noogu ilaalisaan idinkiiyo gaalada idinka dambeeya annaguna waxaanu idinla dilaynaa dadka idinla dagaalamaya tadbiic baa la yidhaha waa in yuhuudda loo saxeexo loo daayo oo loo barakeeyo lagu difaaco dhulka haystaana muslimiinta wax ay ku hadlaan bay garan waayeen ummadaha kaloo dhami gaalo iyo islaam way hadlayeen laakiin iyagu waxay ku hadlaan carabtii heshiiska la qoratay way garan waayeen oo way iska aamuseen ilaa in ay eedeeyaan kooxaha dagaalamaya eedeynaya waxaa soo gaadhay yuhuudda khasaa'ir maaliya faadixa dhimashadu waynu ogsoonnaho waxay ku badnayd dadkii hubka xooggaa lagu isticmaalayay oo 250,000 dad ka badan baa dhintay daara aada u badan baa la dumiyey dhibaato dhaqaale iyo nafibo way soo gaadhay muslimiinta laakiin haddana yuhuudda dhimashadu yay ku badnaanin dhaqaalaha iyo khasaaraha soo gaadhay xagga dhaqaalaha iyagu ku badnaa garoomadii oo dhan baa la wada xidhay shirkadii oo dhan baa istaagay dadkiiba underground baa la galay sidii dagaaladii waaweynee adduunku marka ay dhacaan safaaraadka isu yeedhay macnaha digniinaha la bixinayo meel waliba way istaagtay maalin wal oo hawshoodu ay istaagtana intee oo dhaqaalaabaa ka fashilmaysa waxaynu ogsoonnahay dadka muslimiinta ah ee halkaa jooga Falastiin oo aada loo qaybin jiro waxyaabaha lagu dadaalay in la qaybiyaa ka mid aha way urureen markay arkeen kooxahaas guusha ilaahay uu siiyey way urureenoo way isu tegeenoo ididiilaa gashay kadalik dadka muslimiinta ana iyagana ididiilo weyn baa ina gashay marka la arkay dee talaabiib oo gubanaysa sidii loo gubayay Gazaba waxyaabaha ka soo baxay waxaa ka mid ah in badan oo yuhuuddiina carareen oo Yurub u firdhadeen waxaan arkayay iclaamiyiintooda raggii u waaweynaa oo saxafiyiintii ciidamada ka mid ahaa jaa-isadaha qaadan jiray muxalliliintooda ah si wuxuu u hadlayaa furan ayuu hadlayaa waxa uu leeyahay halkan kuma noolaan karnee nabadgelyaynu u baahannahay Yurub aan isaga qaxno Yurub baa laynagu soo dhaweyn doonaa waayo inagu qalab baynu haynaa buu iyaguna qalbi bay hayaan marka qalabkeena waxa ka adag qalbigooda meeshan kuma noolaan karnay meel nabadgelyo aan raadsanna buu lahaa carabtan madaxdoodu ay noo jiibinayaanna shucuubtooda been bay u sheegayaan buu shacbiguna waqti kastuu inagu soo butaaci karaa marka yaan been la inoo sheegina kuwani waxba inala difaaci maayaan iskaga guurno waxyaabahaasi waa waxyaabaha ka soo baxay ee nataa'ija ee runtii dadka muslimiinta ay ku diirsadeen ha laga xoog bato laakiin waxay ahayd nasri muuqanaya waxay isweydiin lahayn innaga maxay nala gudban innagu dee inaynu isyaraysano maaha oo aada iska dhigta min alcafi innaas dadka kuwa ugu daciifsana iska dhigta maaha hanka qofka muslimkii kaa maaha waxyaabaha inala gudban waxaa ka mid a inaynu u ducayno rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma yaraysanin ducada bal ducadu waa hubka qiimaha badan ee dadka muslimiintu leeyihiin ee aanay gaaladu haysanin waa silaaxu fataakun lilcadow hub dila weeye cadowga asxaabigii sacd bnu abi waqaas asxaabi geesiya buu ahaa allaha ka raali noqdo
wuxuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam sacadoo dee wacdaro badan muujinaya naftiisuna laga yaabo inay arrintaa tusi karto dadka kalena uu hoos u eegi karo uu la hadlayo waxa uhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum isagoo xadiidka bukhaari buu ku sugan yahay isagoo sacad u jeeda iyo qof walba wuxuu uhi waxa la idinku hiilinayaa oo ilaahay idinku arsaaqaya dadkiina ducafadaa ducadooda marka sacadow haddaad adigu cudud leedahay iyaguna dee ducadii bay kula barbar taagan yihin buuhi ha yaraysanin buu u jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ducadu wax la fudaysan kara maaha waxa labaadoo inala gudban inaynu taageerayaashooda noqonno dadka yuhuudda iska dhicinaya aad bay nasiib darro u tahay wadaadda carabta ka mida inay meelaha iclaamka ka hadlaan oo xukuumadu dabada ka gujinayaan iyagoo weeraraya dadka iska difaacaya yuhuudda oo le dadkiibaa kharaabisan oo idinkoo itaal daran baa wax dhaqdhaqaajiseen oo waa la idin baabiiyey ma iska fadhiisataan waa inkaar qabayaan yuhuudda u hiilinayaane u adeegayaan marka in taageero loo noqdo qof muslimahoo dalkiisii la qabsaday oo dadkiisii la laynayo isdifaacaya waajibaadkeenna saaran bay ka mid tahay waxaanaad ka qayb noqonaysaa qofkii u hiiliya taageerayaasha ka mid ihi isagoo la jihaadaya oo kale xadiid muslim ku sugan min xadiidi jaabir nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aada u fogo dagaalkii tabuu ku jira ayaa wuxuu uhi madiine waxaa jooga rag inala socda meel kastaynu maraynaba haddaynu doox marayno haddaynu meel iliilada marayno way inala socdaan oo waa sidee baa leeyahay hadday madiine joogaana wuxuu ihi niyaddooda ay nala socoto ajrigana way inala wadaagaan waa taageerayaashii waxaynala gudban an nurabbiya ajyaalana alqaadima ana alqudus laysa lilfilistiiniyiina faqad bal lilmuslimiin inaynu da'yarteenna ku carbinayno ku barbaarino qudus waxa ay tahay iyo goobaha barakaysan iyo muqadasaadku meel la wada leeyahay difaaceeduna uu waajib yahay waxaynala gudban oo afraad qiyaadadeenna iyo madaxdu dadka muslimiinta horkacaya madaxdeenu ay ka mid tahay mowqif waadixa inay yeeshaan oo dadweynahooda ay jiheeyaan oo aanay isyaraysana dowladaha gaalada hadlaya qaar ba hadlaya latin america dowladooda madaxda qaar ba hadlaya waxay leeyihin caraboo waa hurudaano waxbay iskama celinaysaana goormaydin toosi sawtan ubadkiina iyo ooryihiin laydinku horgowracayo waa madax gaalaad ba hadlaya kuwii muslimka ah maxaad u malaynaysa iyaguna inay mowqif cad yeeshaan oo taageeradooda ay bixiyaan waajibaadkeenna saaran bay ka mid tahay waxa shanaadoo halkaa ka soo baxaynu dareennay ugu dambayntii luqadda shisheeyuu fahmi karaa inay tahay un luqadda quwadda sidaa ilaahayba uhi waaciduu lahu ma statactum min quwatin wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamu awood yeesha baa ilaahay u leh si ay ugu cabsi gelisaan gaalada iyo munaafiqiinta mar walba la socda idinka idin dhex jooga ilaa madaafiicdaa ay maqleen oo ay ku daadatay magaalooyinkooda waaweyn iyo caasimadda weerarkii ay ka wadeen masaajidka dhexdiisa dadka ay ku leynayeen rasaastu ay ka dhacaysay ismay taagin musaalaxay iyo waanwaan iyo heshiis iskumay taagin maalintii ay damqadeen ayaa waxay soo dhaqdhaqaajiyeen carabtii ku xeerayd oo lala soo wada hadlay kooxii dagaalamayay baa nin walba halkiisa lagula hadlay ee ay raabiinta u yaqaaneen xabadda joojiya xabadda joojiya xabad nimankii baa wakiil ka yihin dagaalku markaa wuxuu isku taagay wax iska celintii ilaa haddana waxaa la diraasaynayaa maxay ku dhacday innagoo haysanaa qalabkii la iskaga difaacaya hubka iyo kuwii weerarka in ilaa heerkan khatartu ay gaadho diraasadaasaa socota imika si loo aag bedesho farsamo kale loo keeno ma aha in arrintu ay nabad tahay waxay ku guulaysteen kooxahaas mukhatadaadkii iyo wixii ay yuhuuddu doonayeen inay sii ogaadaan iyaguna ciidamadoodii iyo hubkoodii iyo halkay ka dagaalamayeen ay qariyaan oo ilaa hadda goobaha dhulka hoostiisa ka dagaalamayeen yuhuudda way ogaan lahayn dayax gacmeedkoodii mee dadka qaarkood baa u haysta inay sida ilaahay wax u og yihiin badownimadooda iyo jaahilnimadooda oo koreen meel walba waxbaa laga arkayaa dhulka hoostiisa iyo xaggiisa saraba way arki lahayn hubkoodiina way qarsadeen intay doonayeenna way ku rideen cabsidu markay timid baa heshiiskani uu yimi oo xabad joojintii la sameeyey marka taasi waxa weeye dadka muslimiintiina mar walba awood yeeshaan sidaa ilaahay u nafarayo mid waajiba weeye
intaasaynu kaga gudbi lahayn afarta arrimood baa innagana inagala gudban adoo halkan jooga hadday dhacdo inaad iska nacnaclayso aad Israa'iil iyo Yuhuudda iyo nacamlayaashooda iska taageerto kuwa dagaalamaya lagu qorayaa muslimka la dagaalamaya Yuhuudda la socda adigoo halkaaga iska taagan qiyaamahana iyaga la soo xaadiraysa wala si darro aad u weyn